السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada casharkeeni saddexaad iyo antenatal care. casharkeeni kan ka horeeyay waxaynu u joogtay inagoo soo xisaabinay dad bulsho meel degan oo tiradeedu guud ay tahay 5,000 oo qof isla markaana ay ka soo baxeen 4% oo dumar oo uur qaadi kara ama uur leh sanadkiiba inagoo markaa ka dhignay markaan xisaabta soo saarnay 200 oo haweena exercise baynu yeelay ahaa inaynu image gareyno ama xisaabino tirada bulsho meel degan oo tirada saxda ay tahay 6,000 oo qof isla markaana imisa dumar oo uur leh ayaa ka soo bixi kara. waxay noqonaysaa halkaasi shabeerstii ka dhigayna 5 lagu dhuftay waxaan oranay 6,000 oo lagu dhuftay 5 oo loo qaybiyay 100 waxa la mid tahay 300 oo dumar ayaa ku jiri kara halka. waxaanu bilaabaynaa casharkeena saddexaad insha Allah. casharkeena saddexaad waxa noqonayaa calculating the number of focus antenatal care, xisaabinta tirada haweenka uurka leh ee u baahan daryeelka dhalmada ka horeeya ama ANC-da. xisaabinta tirada haweenka ee u baahan ama qaadan kara adeeg bixinta uureyda ama antenatal care-ka waxay noqonaysaa sidan: women who have a good antenatal care during pregnancy are more likely to have a safer birth and healthier baby. haweenka hela adeeg bixinta dhalmada ka horeysa inta uurka ay leeyihiin waxay u dhowdahay inay dhalmo ammaan dhalaan iyo sidoo oo kale healthier baby, caruur caafimaad qabta ama dhalaan caafimaad qaba. more efficiency and effective, waxaan u baahanay markaa inaan ogaano qaab waxtar u leh isla markaana wanaagsan oo wax ku ool ah. to provide antenatal care has been developed ayaa dhawaan ama sanadaha dhaweyd ama sanadahan la hormariyay ama la sameeyay. habkaas oo la yiraahdo this new approach, habkaas oo la yiraahdo ama loogu yeero focus antenatal care, adeeg bixinta uureyda, adeeg bixinta uureyda loogu yeero. It's a 4-visit schedule with the recommended for pregnant women without a major health problem. waxay leedahay 4 booqasho ama 4 jadwal booqasho which recommended for women, taas oo loo ogol yahay haweeneyda ama pregnant woman ka haweeneyda uurka leh isla markaana without a major health problems aanay jirin wax dhibaato caafimaad oo weyni. The schedule of 4 focus antenatal care visit as follows: 4 booqasho ama 4 jadwal booqashada wuxuu noqonayaa sidan soo socota. First visit waxay noqotaa before or around 60 weeks of pregnancy, wixii ka horeeya ama inta ku dhow 16 week ka hor ee uurkeeda. macnuhu waxa weeyaan 13, 14, 15, 16 toddobaad weeyaan booqashada koowaad. sida oo kale second visit-kuna wuxuu noqonayaa 24 to 28 weeks, weeka 24 ilaa 28. third visit-kuna waxay noqonaysaa ama booqashada saddexaadna 30 to 32 weeks, 30 to 32 weeks, weeka 30 ilaa 32. fourth visit-ka oo loo yaqaano final visit-kuna wuxuu noqonayaa 36 to 40 weeks, oo weeka 36 ilaa 40 weeye, ilaa 40 weeye. waxaynu oranaynaa haweenka hela adeeg bixin fiican ee dhalmada ka horeysa inta uurka ay leeyihiin waxay u dhowdahay inay dhalmo ammaan dhalaan isla markaana iyo caruur caafimaad qaba. haddaba more efficiency and effective approach, hab waxtar iyo wax ku ool ah ee la yiraahdo antenatal care has been developed in recent years ayaa la hormariyay oo diyaariyay sanado dhaweyto
This new approach is called focus antenatal care. waxaan loogu yeedhaa diirad saarista adeeg bixinta uureyda ama dhalmada horteed. sidaa marka leenahay sanado dhaweyd baa kaa la hormariyay waxaa loo jeedaa waxaa jiri jiray hab la odhan jiray traditional antenatal care oo ka duwanaa habkan casriga isla markaana la odhan jiray in la kala saaro haweenka oo lagu sameeyo sida mid kastaba ay tahay xaaladeedu, ama ay dheer tahay, ama ay gaaban tahay, ama ay buuran tahay, ama ay dhuuban tahay. sidaasoo kale markaa risk classification baa la sameyn jiray, laakiin imika haweeney kastoo uur leh khatar bay ku jirtaa baa la yidhahdaayo every pregnant woman has a risk, saas baa la yidhahdaa. waxay markaa leenahay 4 booqasho jadwal ayay leedahay habkan cusub oo haweenka loo ogol yahay aan lahayn wax dhibaato caafimaad oo weyn. haddaba jadwalkan ama hab jadwaleedkan wuxuu noqonayaa 4 visit ee sida soo socota oo visitka koowaad ama booqashada koowaad waxay noqotaa inta u dhaxaysa inta ku dhow hanidhaahda ama horteed 16 wiig ee uurka, halka booqashada labaadna ay noqoto 24 ilaa 28 wiig, midda saddexaadna 30 ilaa 32, ta afraad ee ugu dambeysana ay noqoto 36 ilaa 47. waxaynu eegaynaa sidoo kale haddaba calculating the uptake antenatal care service. waxaynu xisaabinaynaa ama xisaabinta qaadashada adeeg bixinta dhalmada horteed ama uureyda. xisaabinta ka qayb qaadashada ama qaadashada adeeg bixinta uureyda. antenatal care coverage ayaynu odhanaynaa. haddaba inta badan waxaa loo yaqaano antenatal care coverage ama buuxinta iyo sameynta dhalmada ka hor adeega la sameeyo is defined as a proportion. waxaanu ku qeexinaa inuu yahay saamiga of pregnant woman attended ee haween uur leh iska xaadiriyey ama kasoo xaadiray ee ugu yaraan hal mar yimi intii uurka ay lahaayeen oo la kulmay xirfadle caafimaad. macnuhu waxaa weeyaan antenatal care coverageka waxaan ku qeexaynaa proportionka ama saamiga haweenka uur kale ee iska xaadiriyay ugu yaraan hal mar inta uurka ay leeyihiin ama intii uurka ay lahaayeen ee xirfadle caafimaad la kulmay ayaan odhanaynaa waa antenatal care coverage. haddaba antenatal care coverage rate xaddiga ama maxay dhahdaye daboolidda adeegaasi waxaa noqonayaa sidan: xaddiga caynsanaanta ama xaddiga caymiska ama xaddiga haweenka ee adeegaa qaatay wuxuu noqonayaa sida soo socota: is calculated as the total number of pregnant. wuxuu noqonayaa xisaabinta tirada guud ee haweenka uurka leh attended at least once during their pregnancy ee iska xaadiriyay xarun caafimaad ugu yaraan hal mar intii uurka ay lahaayeen by a health professional la kulmay xirfadle caafimaad for reasons iyagoo la kulmaya ujeedo ama sabab relating the pregnancy oo la xidhiidha uurkooda divided by the total number, inaga oo markaa u qaybinayna tirada guud of a expected pregnancy during a given time period, usual 1 year. oo inagoo markaa u xisaabinaynaa tirada guuda haweena ee uur qaadi karta muddo cayiman 1 sano ayaa loo jeedayay in a catchment area, isla markaana joogta ee ku qoran meel ama area aad ku qoran tahay ka shaqeynayso. the result is expressed, natiijada waxaan soo bandhigaynaa markaasaan soo socoto as a percentage boqolay ahaan by multiplying by 100, inagoo markaa sameynayna inaynu multiply garayno 100. macnuhu waxa weeyaan 100 ayaynu ku dhufanaynaa. waxaanu ku dhufaynaa markaa antenatal care coverageka wuxuu la mid yahay antenatal care coverageka ayaa wuxuu la mid yahay number of first antenatal visitka, tirada haweenka ee timi booqashadoodii koowaad xarumaha caafimaadka oo loo qeybiyey total number of expected pregnancies, tiradii aynu filaynay. macnuhu waxa weeyaan antenatal care coverageka wuxuu la mid yahay tirada haweenka booqashadii koowaad la kulantay xirfadlayaasha oo loo qeybiyey tiradii guud ee aynu filaynay uurka lahayd oo lagu dhuftay 100. for example, if the total number of first antenatal visit, haddii tirada booqdayaasha ama haweenka iska soo xaadiriyay ee yimi booqashadii koowaad ay yihiin 100 and the total number of pregnancies, sidoo kalena tirada guud ee uureydu ay tahay 200, then antenatal care coverage is your community will be 50%. markaa wuxuu noqonayaa
bixinta adeegii IACda ee loo baahnaa intaad ka fargaraysa wuxuu noqonayaa 50%. calculated as written below waxaana loo qorayaa sida soo socota. bal haynu eegna markaa waxaynu odhanaynaa antenatal care coverage wuxuu la mid yahay 100 oo loo qaybiyey 200 oo lagu dhuftay 100. macnuhu waa sida waayo waynagii nidhi number of first antenatal visitka oo loo qaybiyey tirada haweenka ee uu reeda filaynay oo lagu dhuftay 100. marka waxa macnaheedu yahay 200 oo dumar oo uur lahaa ayaa waxa inoo yimi 100 halka 100 kale ay weli baaqi yihiin. sida awgeed waxaan odhanaynaa 100kiina soo booqday iyo 200 ee tirada guud ahayd ayaynu isu qaybinaynaa 100 waa ku dhufanaynaa 50 bay noqotay. markaa 50% ayaa coverage antenatal care coverage ku noqday oo aynu u siinay adeega. marka waxay noqonaysaa macnaheedu 50% adeega ayaa la qabtay. waxaa markaa dhiman in 100% la gaarsiiyo oo inta ka dhiman ay ka soo xadirta meesha. exercise ayaynu isa siinaynaa. waxaynu leenahay if the total number of first antenatal visit equal 120 and total number of pregnancies equal 300, then what the antenatal care coverage in your community will be. waxaynu isweydiinaynaa haddii ay tirada booqdayaasha visitkii koowaad ama la kulmay xirfadlayaal caafimaad ay yihiin 120 isla markaana tirada guud ee haweenka uurka leh meeshaasi ama bulshadu ay ahayd 300. markaa imisa weeyaan antenatal care coverage ee bulshadaadu. halkaa waxaanu ka fahmaynaa oo aynu odhanaynaa inay noqoto 120 loo qaybiyey 300 oo lagu dhuftay ayaan odhanaynaa markaa oo lagu dhuftay imisa oo lagu dhuftay 100. waxaan ka codsanayaa qof kasta oo casharkan daawanaya in uu isku dayo inuu xisaabta ka shaqeeyo isagu isu geysto maadaama aan natiijadii marka sheegnay kadibna commentiga uu noogula wadaago. waxaa inoogu xiga calculating the proportion of births attended by health professional. waxaynu halka inoogu xigayaynu xisaabin doonaa xisaabinta saamiga haween ee uu ka dhaliyey xirfadle caafimaad. waynagii markii hore kasoo hadalnay waxaynu ka hadlaynay adeega yaa qaata, laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa imisa dumar ah ayuu ka dhaliyay xirfadle haweenkii uurka soo qaadeen soo garanaynay. similarly successful planning of labor and delivery care service can be evaluated by calculating the percentage of deliveries attended by health professional divided by the total number of expected deliveries occurring during given time period, usually 1 year in the catchment area times 100. waxaan odhanaynaa si lamid ah ku guuleysiga qorsheynta foosha iyo dhalmada ama adeega dhalmada iyo foosha waxaynu ku qiimeyn karnaa xisaabinta percentage ee dhalmo iska xaadirisay ama uu ka dhaliyay xirfad leh inagoo markaa u qaybinayna tirada guud ee aynu filaynay inaynu ka dhalino 1 sano ama waqti cayiman ayaa loo jeedaa. ee catchment area ama meel aad ku qoran tahay oo lagu dhuftay 100 meeshaad ka shaqeynayso macnaheedu waxa weeye halkaas u baadee tiradeeda adiga lagaaga baahan yahay. sida awgeed waxaan odhanaynaa marka hore waa maxay scalability alternative waa maxay. waxaynu odhanaynaa waa maxay xirfadle caafimaad is a person who has been trained waa xirfadle caafimaad oo loo tababaray in midwifery skills xirfadda umulisanimada to manage siduu u maareeyo normal delivery and diagnosis dhalmadii caadiga ahayd ee aan wax dhibaato ah lahayn iyo sidoo kale diagnoskii and manage or refer obstetric complications iyo sidoo kale inuu manage gareeyo ama uu refer gareeyo dhibaatooyinka la xidhiidha dhalmada iyo uurka. skilled delivery coverage rate baynu haddaba eegi doonaa. markaa waa maxay xaddiga xirfadle uu ka dhaliya haweenka uurka lahaa. waxaynu odhanaynaa number of deliveries by skilled birth attendant. waxaynu odhanaynaa tirada haweenka ee dhalay ee uu ka dhaliyay waa loo jeedaa skilled birth attendant xirfadle oo lagu dhuftay 100 oo loo qaybiyay total
of expected deliveries tiradii aynu filaynay inaynu ka dhalino waxa weeyaan tiradii aynu ka dhalinay ee soo xaadirtay ayaynu ku dhufanaynaa 100 waxaynu u qaybinaynaa intii aynu filaynay tusaale ahaan haddii aynu filaynay inaynu 200 oo dumar ka dhalino isla markaana 50 aynu ka dhalinay waxay noqonaysaa oo inaga maqan 150 kale sida waxay noqonaysaa 50 lagu dhuftay 100 loo qaybiyay 150 saas tusaale noqonaysaa laakiin teenahan eegno waxaan sameynaynaa calculate skill delivery coverage rate if you attended for example haddii aad ka dhalisay 150 out of 300 births in your catchment area haddii 150 aad ka dhalisay 300 ee haweene ee uurka lahaa bulshada aad ka dhex shaqeynaysaa meeshaad ku qoran tahay it will be 150 divided by 300 times 100 equal 50 macnuhu waxa weeyaan 50% ayaan ka dhalinay haddii ay ahayd oo iska soo xaadiriyeen adiga ku yimaadeen 150 dumar aad ka dhalisay halka 300 dumar aad ka dhalin lahayd marka 300 ee dumar ahaa ayaa waxaad ka dhalisay ka dhigan tahay 150 sida awgeed waxay ka dhigan tahay waxay noqonaysaa natiijadu sidan 150 loo qaybiyay 300 oo lagu dhuftay 100 waxay la mid tahay 50 exercise kan markaa wuxuu noqonayaa calculate skill delivery coverage rate if you are attended 150 out of 200 births in your catchment area what would be result natiijadu halkan baa laga rabaa waan sheegayaa laakiin idinka xisaabin doona qof kastaana sidii aan sheegnay inuu nala wadaago aynu codsanaynaa waxay noqonaysaa xisaabintaasi inay noqoto haddii aad ka dhalisay ood ka fargaraysay 150 labadii 100 ee dumar ahaa ee filaysay inay ku yimaadaan waa imisa natiijadu macnuhu waxa weeyaan 150 oo lagu dhuftay 100 oo loo qaybiyay 200 waa 75% sidaan filayo natiijadana waan isla wadaagaynaa insha Allah commentiga ha ilaawina calculating the maternal mortality ratio xisaabinta dhimashada hooyada ayaan odhanaynaa xisaabinta dhimashada hooyada the maternal mortality ratio MMR is defined as the number of maternal deaths in a given year in a particular area waxaan odhanaynaa maternal mortality ratio ama saamiga dhimasho ee hooyooyinku wuxuu noqonayaa ku qeexaynaa tirada hooyo ee dhimatay macnaha hal sano ee ku dhimatay in a particular area goob cayiman which can be a whole country taasoo noqon karta dalkoo dhan oo region ama gobol or a community ama bulsho meel degan such as your community tusaale ahaan meesha aad ka shaqeynayso haddii dee bulsho waxaa noqon kara deegaan dadka ku nool baa bulsho noqon kara divided by number of live births iyadoo markaa inaga u qaybina tirada dhalmo nabad ah ama nolol ku dhalatay in same year and area hal goob cayiman iyo hal sano the result multiplied by 10,000 live births so that comparison can be made with the other years and other area inagoo markaa compare garaynayna ama garab dhigayna sanadihii kale iyo eriyooyinkii kale si casharku aan inoogu dheeraanin oo daawashadiinu aanay idinku noqonin mid aad ku caajistaan ama aad waqtiga daawan kari weeyaan halkan ayaan kusoo gabagabeynaa casharkeena saddexaad insha allahu tacaala waxaan isku dayayaa inaan waqtiga u dhexeeya ee labada cashar inta u dhaxaysa aan soo koobo oo maalinle uu noqoto sida ballanteennii horeba ahayd waxaan mar labaad sidii caado inoo ahayd idinka codsanaya qof kasta uu soo gaaro muuqaalkani inuu channelka subscribe gareeyo commentiga tale iyo tusaale wixii uu noo hayo noogu reebo sidaana aan iskula soconno oo qof kasta oo daawade ahi inuu dhiirigeliyo ayaan ka codsanayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inoo casharka afraad iyo marka xiga kan insha allahu tacaala